bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka. qodobada warkeena aad ku daawa doontaan waxaa ka mid noqon doona warar sheegay in Saadaq John oo is casilayay iyo qoorqoor xildhibaan qaadanayo sababtu maxay tahay, iyo beesha hawiye oo dhibaato ay soo wajahday nabad iyo nolol oo mucaaradka kaga guuleystay doorashada Galmudug iyo xaalada doorashada Jubbaland ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay xaalka guud ee siyaasadeed ee farmaajo iyo kooxdiisa ee la damacsan yihiin beelweynta hawiye ayaan daawadayaal kusoo qaadan doonaa. haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena leega iyo sheerka iyo commentiga noogu dadaala. aan ku bilaabo warar sheegayay in Saadaq John uu is casilayay iyadoona Axmed Qoorqoor uu doonayay in uu qaato xilkaasi xildhibaan. goox siyaasadeed oo xoog leh ayaa soo baxaya iyadoo taasi ay si weyn u wada hadal hayaan qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa ku dhawaaqay in uu ku faraxsan yahay inuu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanadaasi ka socotay bilihii lasoo dhaafay. inkastoo Qoorqoor uu shaaciyay in doorashada Galmudug ay soo gabagabeeyeen, ayaa haddana waxaa la helayaa warar sheegaya in kursiga xildhibaan ee Saadaq John uu kusoo baxay oo ku fadhiisan doono Axmed Cabdikaari Qoorqoor, madaxweynaha maamulka Galmudug. madaxweyne Qoorqoor ayaa fila Soomaaliya ku cadaadinaysa in uu helo kursiga xildhibaan, weliba uu ka qaato Jenaraal Saadaq John oo ay isfahansan yihiin, isku beelna ay kasoo wada jeedaan. sababta la sheegayay in Qoorqoor kursiga xildhibaannimada uu qaadanayo la leeyahay inay tahay in laga dhigayo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad, sidaasi oo rajada beelaha hawiye ee madaxweynaha uu ku dhiman doonto. farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa u arkay midda keliya ah ee lagu dili karo hanka musharaxiinta mucaaradka haddii uu Qoorqoor afhayeenka golaha shacabka laga dhigo. jahwareerkan cusub oo dhanka hanaanka qaybsiga beelaha awooda ku leh Soomaaliya ayaa ku imaan doona haddii uu hawiye gudoomiyaha baarlamaanka la siiyo, markaasi oo digil iyo midifle ay heli karaan ra-iisul wasaare, sidaasina ay tahay in booska uu banaan uu noqon karo farmaajo oo ah madaxweyne inuu mar kale kusoo laabto. ra-iisul wasaaraha cusub ayaa markaasi laga dhigi karaa Cabdicasiis Laftagareen oo iska diiday inuu kursiga xildhibaan soo qaato golaha shacabka, booskiisana ugu tanaasulay sodonkiisa Jenaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan. weli ma ahan go-aan hirgalay arrimahaasi, balse waxaa xog lasii saadaalinayaa inay dhici karaan, waxaana musharaxiinta mucaaradka ay u muuqataa mid kaarto siyaasadeed oo aada u ballaaran loo degayo oo ay ku adkaan doonto in farmaajo iyo saaxiibadiisa nabadii nolol ay ka taqlusiyaan. hase ahaatee xaalka siyaasada Soomaaliya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxa uu u muuqanayaa inuu kasii adkaanayo, inkastoo kooxda nabad iyo nolol mucaaradka ay kaga guuleysteen doorashadii Galmudug. tirakoob la sameeyey ayaa lagu ogaaday in codadka xildhibaanada halka ay aadi doonaan marka la gaaro doorashada madaxweynaha Soomaaliya. xildhibaanada laga soo doortay Galmudug ee aqalka sare ee golaha shacabka oo markaan la isku geeyo tiradooda 47 mudane, kuwaas oo musharaxiinta u kala sacbatumaya. musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa 2 cod ku xisaabtami doona Galmudug. Kheyre ayaa ka haysta 8 cod xildhibaanada, halka Dani uu 3 cod oo ka haysto, iyadoo sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed oo 3 xildhibaan soo saartay. Xasan Sheekh oo 3 cod la sheegay inuu heli karo. xildhibaanada laga soo doortay Galmudug ayaana sidaan u kala noqon doona musharaxiinta u taagan: Yuusuf Dhegay tiim Kheyre, Dhuxulow iyo Dhegdheer tiim Kheyre, Mahad Salaad tiim Xasan Sheekh Maxamuud, Yuusuf Xayle tiim Xasan Sheekh Maxamuud, Cumar Cali Cabdi tiim Kheyre, Saabir Shuuriye tiim Xasan Sheekh Maxamuud, Cabdiraxmaan Odowaa tiim Xasan Sheekh Maxamuud, Maxamed Abuukar Jacfar tiim Kheyre, Faaiise Jayte tiim Kheyre, Cabdisamed Macalin tiim Dani, Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo musharax ah, Saadaq John tiim Kheyre, Jawaahir Maxamed tiim Cabdikariin, Xirsi Aadan Rooble tiim Kheyre, Qaali Cali Shire tiim Cabdikariin,
cabdi qeybdiid tiim cabdikariin, saharo colaad tiim dani, abuukar garaaxo tiim khayre, cabsalaan dhaban cadde tiim shariif. 21 xildhibaane ee soo hartay galmudug oo tiradooda gaaraysa 27 ayaa nabad iyo nolol gacanta ku dhigtay. fiiro gaar ah baarlamaanka markii la dhaariyo ayaa wax walba isbedeli karaan, codadkuna laga yaabaa in laga sii iibsado meelaha hadda lagu tiirinayo meel aan ahayn lagu arki karo. Siyaasaddu ma ahan mid saaxiib joogto ah leh, hase ahaatee leedahay dan joogto ah. lama oga xaalka siyaasadda Soomaaliya, hase ahaatee musharaxiinta ayaa cadaadis xoogan haatan soo koraya. dhanka kalena Jubbaland ayaa soo saartay liiska iyo go-aanka ku saabsan kuraasta taalle Garbaharey. guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa shaaciyay liiska 16 kursi ee deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Garbaharey. waraaqad ka soo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in doorashada 16 kursi la qaban doono muddo 2 toddobaad gudahooda, inkastoo aan la sheegin deegaanka lagu qaban doono. wax xal ah lagama gaarin doorashada Garbaharey, inkastoo maamulka Axmed Madoobe ay ku dadaalayaan. waxaa jira warar aan la xaqiijin oo tilmaamaya in la qorsheynayo in doorashada 16kaasi kursi loo wareejiyo degmo kale oo Jubbaland ka tirsan, maadaama Garbaharey ay isku raaci waayeen. waraaqada ka soo baxday guddiga doorashooyinka Jubbaland kuma cadda halka lagu qaban doono doorashada kuraastaasi iyo waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo, marka laga reebo inta badan qaabka ay haatan doorashada ay u soconayso. madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo kooxdiisa ayaa weli waxay ku dadaalayaan in doorashada Garbaharey gacantooda ay ku jirto, isla markaana marnaba ayna u suurtagelin kooxaha siyaasadooda kasoo horjeeda in ay mar kale ay tallaabooyin ay qaadaan. dhanka kale koonfur galbeed ayaa ku gacan seertay Rooble iyo guddiga doorashooyinka awoodihii siisay mursal. qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa looga soo horjeestay jadwalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal, kaasi oo lagu cadeynayo waqtigii ugu dambeeyay ee la dhaarinayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale waxay sheegtay koonfur galbeed in ra-iisul wasaare Rooble iyo guddiga doorashooyinka federaalka midkoodna uusan wax kaalin ah ku lahayn soo xareynta iyo sidoo kale dhaarinta xildhibaanada la doortay. qoraalkani uu baahiyay xafiiska Laftagareen waxa uu awoodda siinaya baarlamaanka 10aad ee waqtigiisa dhamaaday, iyadoona lagu tusaale qaadanayo baarlamaankii ka horeeyay ee 9aad. sidoo kale waxay koonfur galbeed ay sheegtay in kaliya ay aqbalaysay in jadwalka iyo qorshaha ay ku heshiiyeen madasha wadatashiga qaran, kaasi oo ku yimaado wadatashiga ay ka qayb qaataan dhammaanba dowlad goboleedyada iyo maamul gobolka. sidoo kale maamulkaasi waxuu ku doodayaa in waajibaadkaasi uu u yaalo baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday ee 10aad. waajibaadkan ayaa waxa u muuqanaya mid maalinta ka dambeysa baarlamaanku cakiraad gooni ah ay gelinayso, inkastoo guddiga xalinta khilaafaadka ay ku fashilmeen wax waliba. guud ahaan daawadayaal warkii waad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka oo anaga